بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin hoggaanka warfaafinta iyo wakiiladiisa waxaa runtii ilaa 7 maalmoodba waxaan ku maqnaa xagga Addis Ababa ayaan hawl ugu maqnaa hawlahaasna si fiican bay runtii noogu qabsoomeen waxaa ka mid ahaa hawlahaas inaan Prime Ministerkii dalka Itoobiya aanu la kulanno oo hawlo qabyo naga aanu ka wada hadallo wada hadalkaas oo daba socday wada hadallo hore oo jabhadda iyo dawladda Itoobiya u dhaxeeyay hawlahaasna mataqaana wada hadalladaas si fiican bay noogu dhamaadeen ka bacdina waxaanu kulamo kala duwan la sameynay ama aanu la yeelanay hay'adaha kala duwan ee bulshada waxaanu la kulannay odayaashii iyo culimadii baanu la kulannay kadib markaanu kala war qaadanayna waxaanu warbixin ka siinay xaaladda hadda halganku uu marahayo kadibna waxaanu la kulannay ganacsatadii iyo ururadii bulshada ayaan la kulannay iyagana si fiican baanu isu waraysanay warbixin xaaladda guud ee halganka iyo ummadda iyo imaatinkii aanu nimid halkan aanu nimid baanu warbixin ka siinay iyo ujeedadeedii iyo siyaasadii iyo dantii lagala iyaguna warbixin bayna siiyeen xaaladood siday tahay ka bacdina su'aalaad kala duwan ayayna warsadeen kulamadaas waxay runtii kulamo aad iyo aad u faa'iido badan bay ahaayeen oo sidii caadiga ahayd kulamadeeni aynu bulshada la yeelan jiray oo kala ah hawlahaas runtii guud ahaan si fiican bay noogu wada dhamaadeen ama ha noqoto kuwii dawladda federaalka ah ama ha noqoto kuwii ururadeena bulshada iyo jabhadeena la xiriiray hawlahaas dhumaantood si fiican bay noogu dhamaadeen ka bacdina nabad qab baanu maanta ku soo noqonnay oo nu jigjiga ugu soo noqonnay hawlaha iyagii caadiga ah baanu halkaa ka sii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo waxaana rajaynayaa ama aan ilaahay ka baryayaa inuu hawlaha noo fududeeyo dadkayaga iyo dalkayagana ilaahay inuu guuleeyo yaan ilaahay ka baryaynaa khayrna ilaahay uu nawaafajiyo aad iyo aadna waad u mahadsantihiin insha allahu waananu salaamaynaa ama salaam aad u wanaagsan baanu u diraynaa ururkayaga iyo hay-adihiisa kala duwan waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu مقنعين هؤلاء نوجد مقنعين أتسوون مقنعين هؤلاء يجين سحادي وفي حظ نوصل إذا كان هذه أتبعني سلامة يا واد بعد سنتي سودوين تنفيعا نبغى سودوين سنة هذه أتبعني سلامة يا إن أنا كوضع هذا وشددي ويني تاسع هاي وضع هذا الكاسنا مو أنا هاي ميد هذا بالوضع الدولة إثيوبيا كده هي يا هذا كهر شري كل ما دي بقى runtii sii socday
waxayna uun ahayd maadaama aynu urur halgamahay aynu ahayn kabacdina aynu dalkeenni ku soo noqonnay bulshadeennina aynu u nimid habkii urur ahaan aanu hawsheenna u sii wadi lahayn iyo habkii loo wada shaqayn lahaa iyo nabadgeliyo sidii loo xasilin lahaa innagoon xuquuqdeenna ka tanaasulaynin xuquuqdeennii aynu shalayta u dagaalamaynin innagoon xuquuqdeenna ka tanaasulaynin sidii aynu nabadgeliyo hab nabadgeliya aynu mataqaanaa hawsheenna ku sii wadi lahayn sidaad xusuusan tihiin astaanteennu waxay ahayd qori iyo qalin isa suran oo sidaas haddii marxaladdii qoriga aynu aragnay inay maslaxadda qalinku hadda marxaladdan hadda ay ka habboon tahay si nabadgelyada loo sii wado waxaan runtii yani ku dadaalayna ama aanu ka wada hadalnay sidii nabadgeliyo loo sii wadi lahaa ama salka loogu dhigi lahaa isagoo aan xuquuqdayadii aanaan intaa in la ka tanaasulin dhinac kasta oo tahay xuquuqdayadii annagoo wadna inaanu haddana qalin iyo nabadgelyo aanu ku xasilino runtii arrintaana si wada jir aanu isula garanay kulankaa kabacdi waxaanu la kulannay bulshadeennii halkaa joogtay ugu horrayntii waxaanu la kulannay odayaashii iyo uqaashii iyo garaadadii iyo salaadiintii iyo dadkii bulshada hogaaminaya odayaasha yaanu la kulannay si fiican baanu uga sheekaysanay mustaqbalka ummadeenna iyo sidii loo wada shaqayn lahaa yaanu ka wada hadalnay si wanaagsan baanu arrintaa isula jeexjeexnay kabacdina waxaanu la kulannay maamulada unugyada iyo ururada bulshada iyo ururkeenna yani hogaamiyayaashiisii hoose ururada bulshada iyo unugyadeenna hogaamiyayaashoodii yaanu la kulannay iyagana waxaanu uga warrannay xaaladda ururkeennu siday tahay iyo dowrkoodu waktigan hadda ah dowrkoodu sida uu yahay ayaanu uga warrannay kabacdina waxaanu la kulannay ganacsatadii iyo dadkii halkaa dhulkaa ka shaqaysanayay yaanu la kulannay iyagana waxaanu ku guubaabin oonu kula hadalnay inay ka qayb galaan halganka oo inaan shilinkooda fiirsanin ay halganka ka qayb galaan oo bulshada iyo wanaaggeeda ay ka qayb galaan oo dhinaca toosan ee wanaagsan ay ka qayb galaan dhammaantood kulamadaas waxaana aad iyo aad ugu adkaynay oonu hoosta ka xariiqnay in midnimada ummadda Soomaalida inay tahay muqaddas in la ilaaliyo ummadda midnimadeeda in la ilaaliyo inay muqaddas tahay arintaasaanu aad iyo aad uga hadalnay dadka waxaanu aad uga hadalnay khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka jira in la baabi'iyo in la joojiyo dadkeena dad kale u soo dhalan maayaane innaga intaan la idin la hadlay ama intaan la hadalay oo garaadada iyo salaadiinta iyo bulshada ururadii bulshada in dadkiinana ummadda mas'uulka dad kale u soo dhalan maayo dadka khilaafka waa in laga joojiyo dadku waa inaan islaam waa inaan dadka mataqaana dagaaladan shacbiga ee la leeyahay reebil baa isku duulay waxa inaynu ka hortagno qarniga aynu joogno iyo waxa aynu doonayno iyo isma keenayaan dadkii baa islaynaya waxana islaynaya hebel baa la dilay heblaa la dilay isma keenayaan marka aad iyo aad baan odayaasha iyo siyaasiyiintii yaryarka ahayd ee halkaa joogta arrimaha aad iyo aad baan uga hadalay runtii guud ahaan markaan idiin soo ururiyo safarka iyagu inkastoo waqti kooban u ahaa haddana yani runtii maadaama ururku hadduu nidaamsan yahay waay maysid jaanis aad ku gudbiso siyaasaddaad rabtay aad ku gudbiso waay maysid si dhib yar baanu yani mas'uuliyiintii dalkaa joogtay oo dhan aanu ula kulannay si dhib yar baanu ugu gudbinay wixii xogaheenu haynina waanu u gudbinay wixii mataqaana siyaasad ahaa aynu rabnay inay fuliyaan waanu u gudbinay aad iyo aad bay waqtigii yareeyeen halkaa jiray waxaanu isleenahay waajibaadkiina malaha waad gudateen baanu isleenahay intii yareeyeen halkaa jiray hadda idinkana khayr aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad soo dhaweyseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawlihiina aad wadanaysaan si fiican baad u wadanaysaan sidii inoo qorshaysneed iyo hawlayihii kala duwanaa ee aad awal horeba wadateen baad wadanaysaan waxaan aad idinkula dardaarmayaa midnimo wax la yiraahdo
midnimo wax la yiraahdo waxaan aad idinkula dardaarmaya inaynu ummadeena kala dagaalano khilaafaadka dhexdooda ee qabiilka iyo ku salaysan inaynu kala dagaalano maxaa yeelay horumar iyo wanaag gaari mayno bulshooyinka aynu ku dhex jiraan la tartami kari mayno haddaynaan mid noqonin oo aynaan ummad qowmiyad wada jirta oo Soomaali ah oo iyadu danaheeda iyo horumarkeeda ka shaqeynaysa haddaynaan noqonin waxaynu tarayna ma jiro marka innagu mowqifkeenu ha ahaado bolosigeenu ha ahaado ummadeena inaynu midayno iyo inaynu khilaafaad kala dagaalano khilaafaadka dadkeena dhexdiisa ka jira ee isleeleynaya inaynu arintaa ka hortagno midnimadeena aynu xoojino mar walba dowrkeenu ka ahaado mabda'eenu waa kii jooxo mabda'eedii weeye in aynu isku xidhnaano midowno ee horumar iyo ummadeena midaynteeda aynu ka shaqeyno marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad noo soo dhaweysaan khayr Allah idin siiyo waa guul iyo gobonnimo yaa inoo rajaynaya waad mahadsantihiin